ninkan waa senator maraykan ah. Senator waa xildhibaan. Waxay ka yaabiyey oo uu facebookiisa la soo fariistay uu arkay xatooyo xatuuganimo qof af Soomaali ku hadlo ee Soomaaliland ninka odayga sheekadiisa dhowr jeer ay soo qaatay 28.8 milyan oo dollar sheekadii maalin kan dambeeyo waxba soo kordhay moogta ninka baaris markii lagu sameeyay waxa soo kordhay ama soo baxay arrimo aniga laftirkayga dhigi karo qofka ma jiran yahay markuu talaabooyinkaas qaaday sidee adigoo og dal sharci leh FBI da runta ahayd tiibabeenta ah FBI da runta ahayd ee dariskaada tahay adigoo og sidee isku dayi kartaa inaad lacag boojiso horta aniga Soomaalidaas waa ku wareen nimayahow ummadda Soomaaliyeed xaqiiqda marka ka hadalno dadkan cadaanka ah qaarkood inaad daris la ahaano nabadaas maxaa li mararka qaar xitaa la isku wada imaado dhaqankeeni iyo cuntadeeni iyo wax ay ka fahmaan nolol noocaas Minnesota iyo Ohio iyo Maine iyo Seattle, Washington, Atlanta, Washington DC, New York way ka jiri jirtay war waxaan ceebeeyay tuugo suudad wato tuugo suudo ku wataa saacadu ku xiran yahay maxaa la dhihi jiray baalkiya dhagaha ugu adigu waa tug maamada masaakiinta iska shaqeysato oo waxaan shaqadeeda ahayn iyo yarkaan masaakiinka taraglaha yarkaan taksiga wada iyo wixii oo dhan oo dhiiqo wada gelinayaan hadda Minnesota kiiskii feeling of future loo bixiyay waaba ka sii darayba maalin ka dambeeso 70 qof badankooda Soomaali ay yihiin iyo waxa kaaga sii daran muuqaal kale idin soo wado oo sheekada Minnesota tan Minnesota kuma saabsan muuqaal idin soo wado sheekada Minnesota 5 Soomaali ah oo madax Soomaali sheeganaysi ninka labaad ugu awood badan gobolka Minnesota oo Attorney General Keith Ellison Allah Soomaalida Mareykanka way yaqaanaan in qol la gashtay recording laga sameystay ninka odayga ay xitaa waxa la yiri noo Soomaaliyo ma naxeeso niyo Soomaali sax waa la yaabaan kulaha doorasho soo socdo aka caawinayna saaxib adna caawi la luush caadi ah ninkii diiday oo war aniga dhiiqa ay gelin muuqaalkaas muuqaal xiiso badan faraha kula jira dib noo soo celi ninkan sheekadiisa xildhibaanadii gaartay madaxdii gaartay lacagtii maqneed ee la qaatay xabaq waxaas wax kaaga dar ninka tooshka ku ifiyay waaba la cararay asagoo sheekadii dhiiqadii ku jiro meeshii tartiib qareen la sameeysan lahay oo sidoo iskaga dhaqi lahay dhibaatadan dhacday ama xitaa 5 sano xitaa xabsi ugu cuno wixii asaas isku sii dheeray warheedaha labadan muuqaal ila daawada sheekada meesha aniga ka xanaaqsan idin sheegay oo sanadka hore aniga dhalinyarada Soomaaliyeed naga xanaajis ninka Jubbaland oo tartama u yiri madaxweyne araba ina qabto haba dhahe wuxuu nala soo hor istaagay aniga Ethiopia iyo Kenya dhankooda jira difoosa ah waxaana ka difaacaya oo dhahay hadii madaxweyne aan ka noqdo Jubbaland dadkaas difaaca Kenya Ethiopia difaaca waxa ka difaacaya Soomaaliya iyo argagax Soomaali ka imaanayso ninka toos u cadeystay inuu Soomaali ahaan jaajuusnimo taas isoo kale muuqaal asagoo dhahayo hadii madax aan noqdo dawladda aan rabo iyo shacabka aan rabo inay dawlad Jubbaland ila dhisaan waa kuwa Kenyaanka ah Soomaaliya xitaa ma soo sheegin kuwa Kenyaanka shacabka Kenya iyo madaxda Kenya taasoo ayadana cadeen toos jaajuusnimo war ciil aniga meel wala farin la ahaye muuqaalkan ilaa vision for Jubbaland is to stabilize the region and at the same time also making sure that our neighboring countries including Kenya and Ethiopia are protected. What we need to do is to partner with the Kenyan government and with the Kenyan people, making sure that we have strong institutions in Jubbaland. حق ummadda Soomaaliyeed haduu ka soo baxo wakaasa Facebook iska tirtir Twitter iska tirtir ninku baraha bulshada ku sii caruur waxaas FBI baa waxaas ka yeelis ninkaas waa ninka ugu horeeyay aniga as dhigi karo ummadda Soomaaliyeed xaqooda ka soo baxay maxay yeelay dabin iyo dhibaato ummadda Soomaaliyeed ula damacsanay ay asaga haysato maanta waxa leenahay kulay qofka ma ka tooba keenin raali ahad ummadda Soomaaliyeed ma dhihin jaajuusnimadiisa kama soo laaban marka waxa leenahay xabsiga Allah ku dheereeyo leenahay fariina u diraya Soomaalida Mareykanka Canada iyo Europe iyo Australia dhigeysta dadkan baasaboorada ajnabiga ah wato ee Soomaaliya haligta la damacsan ee jaajuusyada ah ee wadamada kale ee wataan maxaa qabiil ugu taageeray sida ninkan u soo qarxinay ma u soo qarxisaan boqolaal qof oo ayaga kamid ah ayaa xabsiyada Ingiriiska iyo Mareykanka iyo Canada iyo Australia dhex fadhin lahay oo maanta ummadda Soomaaliyeed xoogaayo dhacaayo oo jaajuusin ah dhibki jira wuxuu yahay
قبيلة لدى بتاجنتينا كود دفاعيسان نين كان ودن ششاية أيو دفوس وياهي أو واجاجو الصومالي وحبك مجل يا دقيه اللي يقول مغلي لاي ماشي ميالاني